hay'adda Xikma Foundation oo kaashanaysa hay'adda waqfatu dayaat ee dalka Turkiga ayaa maanta deeq raashin gaarsiisay degmada Xaaji Saalax ee gobolka Daadmareed. Raashinkan oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan 750 qoys oo ka kooban sonkor, daqiiq, bariis, saliid ayaa waxa ugu horreyntii goobtaasi ka hadlay Ustaad Maxamed Xandulle oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda Xikma waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sida tan. maanta waxaanu joognaa degmada Xaaji Saalax oo aanu ku qaybinaynay raashin ay bixisay hay'adda Turkiga ah ee waqf diyaana yani Turkiya oo markaa ay wakiilna ka tahay al-Xikma oo Soomaaliland oo markaa yani loo kala iyaga markaa ay wakiil uga yihiin runtii si sharaf badan ayaa degmada aan u tagnay ilaa ay noo qaabileen dad runtii aad iyo aad u sharaf badan oo aan qaylo ka bixin oo wax dhibaato aan ka bixin raashinkaas oo runtii tiradiisu yahay 750 qoys uu yahay ay tamada ay qaateen ay kala yihiin bariis iyo sonkor iyo daqiiq iyo baasto iyo saliid aad iyo aad baa runtii ay dadkaasi ilaahay ugu mahad celinayeen ilaahay baa marka hore mahad leh kaasoo la siiyay dadkii jilicsanaa runtii marka dadka la xulay ilaahayna waxaan ka baryaynaa gacan bini aadmi laguma baahi baxo waynu ognahay ilaahay uun baa wax kafeeya ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay ka soo furto dadka baryada oo markaa yani sida ilaahay uga furto haddii ay abaartu sii socotana waxa aanu ka codsanaynaa ay ku rajo weyntahay degmadu inay ka hesho intan iyo in ka badanba hay'adda Turkiga ee markaa yani iyo hay'adda ka wakiilka ah ee markaa iyaduna al-Xikma kolley sidaas hawsha aan u baxnay ay tahay ilaahayna si fiican buu nagu guuliyay qaybinteedii aad iyo aad baa lagu mahad celinaynaa annaguna waxaana markaa lagu qaybiyay ugu dambeyntii dadkii deeqdaasi la gaarsiiyay ayaa u mahad celiyay hay'adda Xikma waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida tan. Tukriguna soo gaarsiiyay ee raashinka ilaahay ha ka jawaab siiyo oo khayrkeeda iyo barakadeeda Allah ka siiyo annagana Allah noo kado ayaan ku ducaynay oo sida Allah barakiyo khayr ka dhigo deeqda raashinka ee la soo wada gaadhay ee aanu ka dharagnay ilaahay ha barakeeyo deeqda Turkiga ee la soo gaadhay ee raashinka iyo bariiska iyo daqiiqda iyo nooc walba leh ayaanu ku mahadnaqaynaa oo ugu mahad celinayna kuwa soo gaarsiiyay mahadnaqaynaa isaga ilaahay baa mahad leh hay'adana waan salaamayna si fiican bay noo qabtay si fiican oo nabadgelyo bay noo gaarsiiyeen oo ahayn بوقي ولا هيدا ديقنا مسيسي شكر بانو نقينا الحمد لله رب العالمين إلهي حسناتها وقدقو إلهي قالما إيقادها وقاقحينها وقدقو أنا قنا إلهي دادما شفالها نوقدقو إن شاء الله إلهي دادما شفالها نوقدقو هالكي كاكيرين إلهي خيرها ودقو ما شاء الله تبارك الله وانو مهنقينا إنما دانو كياني راشين كيا هالكي وكيمي هيدا كيانتيبا أيقنا إلهي سقا سبحانه وتعالى هكا أنا قنا دادما شفالها الله نوقدقو إلهي سبحانه وتعالى أننا الله وقرقاه نوقرقاه يجنا الله وقرقاه. وياسر عبد الله كاهن تلفزيون عالمي ستار تي في مجال برعوه.